maanta oo ay bisha May tahay 12/2020 waxaynu mar kale isugu nimi kulankeenii maalinlaha ahaa ee aynu kaga warbixin jirnay xaaladda guud ee xanuunka COVID-19 marka laga hadlayo qarankeena Jamhuuriyadda Soomaaliland. maanta xaaladaheenii hore waxaa ku soo biiray 6 xaaladood 5 xaaladood waan ka xumay 5 xaaladood ayaa ku soo biiray 5 xaaladood ee ku soo biiray 5 qofba waa rag 5 qofbana waxay joogaan gobolka Maroodijeex. sidii aan horeba ugu sheegi jirnay dadku waxay u dhaxeeyaan da'da 30 jir ilaa 70 jir oo dhammaantood waxaanay markaa tirada guud ay ka dhigaysaa 48 waayo shalay waxaynu maraynay 43 xaaladood. markaan eegno 6 xaaladood waxay ka soo baxeen 20 qof oo shalay baadhitaan loo sameeyey iyadoo tirada guud ee la baadhay ay noqonayso 426 qof oo laga baadhay xanuunka ilaa muddadii aynu shaqaynaynay oo intooda badan la baadhay muddadii uu bilaabmay shaybaadhkeenna cusub ee PCR-ka ee ka shaqeeya halkan. waxaa sideedii inoogu socotaa hawshii aynu ka wadnay xuduudaha ee wasaaradda horumarinta caafimaadku ay ku eegi jirtay la socda baabuurta ganacsiga ee ka soo gelaya xuduudaha 24 saacadood u dambeeyey laga hubiyey xanuunka dad dhan 2182 taas oo ah number badan runtii, laakiin shaqaaluhu waxa ay ka eegeen inay dadkaas leeyihiin calaamadihii xanuunka oo ay ugu horeyso xumaddu. waxaa weli si habsamiyo inoogu shaqaynaya call centerkeennii iyadoo maalin walba ay dadku soo wacayaan call centerka isagoo 3 shiftiba ay shaqaynayaan. 24 saacadood u dambeeyeyna waxaa soo garaacay 13,229 halkaas oo ay shaqaalaha kala duwan ee ka shaqeeya call centerku ay siiyeen jawaabo kala duwan iyo service kala duwan oo isugu jira tala bixin, qofkii oo loo diro xarun caafimaad, wacyigelin, intaba call centerku isugu jiraa waana ka heleen dad. tirada guud ee la baxnaanaynta ku jirta ama karantiinka ku jirta waxay noqonaysaa 70 taas oo ay wasaaradda horumarinta caafimaadku ay ku hayso meelo loogu talagalay oo karantiin ah. sida kale waxay iyaduna weli inoo socotaa isdiiwaangelinta online-ka ah ee ay shaqaale weynaha wasaaradda horumarinta caafimaadka iyo kuwa aan ka tirsanayniba ee kaadirka caafimaadka ay isku diiwaangelinayaan inay si volunteer ugu shaqeeyaan haddii ay timaado xaalad baahiyeed oo keentay in shaqaale degdega loo baahdo oo ka shaqeeya si volunteer ku shaqeeya xanuunkan. marka waxaa jira linki website-ka wasaaradda ka tirsan oo uu qofku iska soo diiwaangelin karo oo online ah, kaas oo wasaaradda horumarinta caafimaadka deedna ay wasaaraddu eegayso qofka qualificationkiisa iyo xirfadiisa caafimaad. deedasi bogsashadiina ay bilaabantay iyadoo numberka bogsada imika uu maraya ilaa hadda 6 qof ayna socoto bogsashadu maalinba maalin ay ku soo biirayso. dadku waxay u badan yihiin dad ladan ama calaamadihiiba aan lahayn laakiin u baahan in muddada ay noqonayaan negative-ka ay gooni uga joogaan bulshada. sidaan la wada soconno ambaan hore u sheegnay xanuunkani waa xanuun dadka intiisa badan
oo gaadhaysa boqolkiiba 70 boqolkiiba 50 boqolkiiba 60 way kala duwanaan kartaa dadku waxay noqonayaan dad caadi ah oo wax calaamadaan lahayn halka inta kale qiyaastii ay ilaa boqolkiiba 20 ay noqonayaan dad calaamadihii leh laakiin calaamadahoodu ay sahlan yihiin dadka in yar oo inta u dhaxaysa 10 ilaa 15 qof baa aad u xanuunsanaya intaa weeyaan inta dhibaatadu ay ka imanaysaa ay ku jiri karayaan kaysaska la yidhaahdo criticalka ama case aad u xanuunsanaya oo naqasku xoog ugu dhibayo oo u baahan kuwa xoog ugu baahan in si aad ah looga shaqeeyo ay tahay ama dhakhaatiirtu ay si xooga uga howlgalaan ay tahay marka dadka waxaan kula dardaarmaynaa laba arrimood oo aad u waaweyn oo iminka maadaama uu inoo shaqaynayo mishiinkeennii waxaan kula dardaarmaynaa dadka in qofkii calaamado duni yeesha ama qofkii la kulma qof lagu caddeeyey xanuunka waayo dadkan xanuunka lagu caddeeyey dad bay la noolaayeen inay dadkaasi is-eegaan oo ay bulshadu is-taskarayso maadaama uu inoo shaqaynayo mishiinkeennii waa inay dadku is-eegaan oo iska hubiyaan xanuunka oo is-shaybaadhaan shaybaadhkaas wuxuu keenayaa qof dad badan oo islahaa xanuunka kuma hayo deedna ay galaan amba home isolation ha ahaato guriga ha isku karantiimeeyaan oo ha isku gooni ha isaga dhigaan amaba wasaaraddu meelaha ay ugu tala gashay ha geysay taasi waxay keenaysaa markuu qofku is ogaado inuu yaraado fiditaankii xanuunka ta kale ee aan dadka kula dardaarmaynaa waxa weeye in aad loo isticmaalo social distanceka ama kala fogaanshaha marka labada aynu aadka ugu celcelinaynaa waxa weeye in dadku istaskareeyaan oo ay isbaadhaan oo ay xanuunka iska eegaan waayo waxaa diyaar ku ah wasaaraddii horumarinta caafimaadka shaybaadhkeedii oo lacag la-aana oo bilaash ah oo ay shaqaalihii diyaar ku yihiin oo ay diyaar u yihiin inay ku hubiyaan oo ay kaa baadhaan xanuunka talabaad ee kale waxa weeyaan in qofku iyo dadku ay kala fogaadaan oo ay kala durkaan waxaan aad ugu mahad celinaynaa sidii aan shalayba sheegay culimada ilaa iminka garatay in xanuunku uu xoog u fidayo deedna keenay nidaam ay ummaddu kuna cibaadaysato dadkiina ku kala fogaadaan amba ha noqoto in la kala fogaado masaajidka dhexdiisa amba ha noqoto salaadaha qaar in la fasaxo amaba ha noqoto inay masaajidada qaar dee ay fasaxaan oo yidhaahdaan guryihiina ku cibaadaysta culimadaasi oo sidii aan horeba u sheegay gaar ahaan culimada reer boorame iyo culimada reer saaxil labadaa gobolba aad ayaan ugu mahad celinaynaa oo si weyn u fahmay fariimihii wasaaradda horumarinta caafimaadku ay soo jeedinaysay waxaan filayaa maalmaha soo socda inay culimo badan oo kale kusoo biiri doonto oo ay dhagaha u raaricin doonaan wacyigelinta ay bixinayso wasaaradda horumarinta caafimaadka maadaama xanuunkii uu maalin walba fidayo oo aynu maalin walba dad soo kordhinayno dadku waa intii soo baxday intii kalena way fiditaankii wuu socdaa meelaha uu aad uga fidayo waxaa ka mida meelaha dadku isugu yimaadaan haddii dhowr saacadood qof xanuunsanaya uu ummad meel la joogo ummadda in badan oo ka midi way qaadaysaa xanuunka ummaddii qaadina waxay kula noqonaysaa guryahoogii waxay kula noqonaysaa dadkii waaweynaaye da-da ahaa ee aqalada joogay waxay kula noqonayaan dumarkii dadkii ma lahaa xanuuno kale sida macaanka ama dhiikarka ama wadna xanuunka waanaynu ognahay in guryaheenna iyo xaafadaheenna ay xaaladahaasoo dhammi ay jiraan oo dad xanuuno kale oo xanuunsanaya ay jiraan taasi waxay keenaysaa inay dhibaato weyni ay timaado waxaan aad iyo aad kula dardaarmaynaa dadka inay qaataan nidaamka kala fogaanshaha inay qaataan wacyigelinta ay fidinayso wasaaradda horumarinta caafimaadku inay qaataan oo ay isticmaalaan nadaafadda oo ay ugu horeyso faraxalka oo ay ku jirto nadaafadda biicadda uu qofku ku nool yahay oo ay ku jirto nadaafadda guud qof walbana waxaan kula dardaarmaynaa inuu qayb ka qaato wacyigelinta socota waxaa kaloo jecelahay inaan halkan uga mahad celiyo inamada saxaafadda ee maalin walba halkan yimaada ee iyaguna heeganka waa iyaga oo aan wax kale oo ay halkaa u imanayaan aanay jirin ee aan ahayn inay dadka gaadhsiiyaan fariimaha wacyigelinta iyo xaaladaha maalin walba aan shaacinayna ee cusub
si ay ummadda ugu noqoto wacyigelin inamadana aad iyo aad ayaan ugu mahad celinayaa iyagana waxaan leeyahay taariikhda ayay idin qori doontaa waayo ilaa iyo intii aan halkaa taagnaa iyaguna way nala taagnaayeen iyaga oo aan helin wax dheefa oo ay u yimaadaan halkaa ee si mutadawacnimo maalin walba u yimaado idinkana waan idin mahad celinayaa aad iyo aad ayaad u salaamantihiin waxaan idinku leeyahay jasaakum allah khayr wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu